ardaydan maanta tababarka looga furay jaamacadda Camuud waxa ay tiradoodu dhannayd 9 waxaana ay ahaayeen macallimiin wax ka dhiga guud ahaan gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 45 kamid ah waxa ay haystaan shahaadooyinka dibloma waxaana tayeynta waxbarashadooda la gaarsiin doonaa heer degree halka 45 kale iyagana la gaarsiin doono heer dibloma tababarkan oo ay maalgelinayso midowga Yurub isla markaana ay fulinteeda iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada jaamacadda Camuud iyo hay'adaha caalami ah oo ay hormuud u hay'adda Save the Children International ayaa waxa furitaankiisa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada maamulka jaamacadda Camuud iyo madaxda hay'adaha caalami ah ay gacan saar ka leeyihiin ugu horeyntii gudoomiyaha jaamacadda Camuud Professor Saleebaan Axmed Guuleed oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu carabka ku dhuftay waa shaqada lagu faanay ugu fiican waa shaqadii Nabi Maxamed iyo ambiyadii oo dhan waxay ahaayeen macallimiin shaqadoodii baynu qaadanay rasuushii shaqadii ilaahay u soo diray risaale fidinayeen inna risaalati ka yar qabo ma fidinayna marka aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa xolkii hore soo noqday iyo dhalinyartan dambe noo soo noqday diraasadan cusub ee hadda la idin siinayaa macna ka weyntii hore therefore idin samaynaysa ku soo dhawaada mar labaad agaasime iyo tababartayaasha waynu wada joogaynaa insha Allah madaxa mashruuca waxbarashada ee hay'adda Save the Children International oo mashruucan habsami u socodkiisa kaalin ballaaran ka qaadanaysa mudane Axmed Abakar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa carab dhabay ujeedada tababarkan dhinaca tayeynta waxbarashada macallimiinta dugsiyada sare ah tababarku kulay waa muddo kaaban saadii sheegay 2 sano ayaa la dhigan doonaa laakiin 2 sano waxa loo baahay runtii midhadhalkiisu inuu noqdo mid sii jira oo markaa dugsiyada sare baahida ka jirta oo kor u qaado مشروعنا وحمالكي ميدو يوروب أنتي أنا هاد بلعنا بيجينينو مشروعنا وحمالك كباسيتي وسهرد أيو حقوق لسدونا ده 7 سنوات صعدة وكل حقوق لسدونا كباسيتي كجامعة مركز جامعة عمود كميتهاي إذا واحد في المركز معلمتي سكولة وحكلجي أما إنسان ستيشرس معلمة ساينو شيء بروفيسور وحوي عرفتي وعشقاء شريفة gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Awdal mudane Umar Suldaan Indhamood iyo hormuudka kuliyadda waxbarashada ee jaamacadda Camuud oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday ahmiyadda tababarkani leeyahay agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada mudane Khadar Diiriye ayaana si rasmi ah u furay tababarkaasi oo socon doona muddo 2 sanadood Cabdulla Ali Yusuf Hon Cable TV Borama